xalay xilligan oo kale ayaa waxa weerarka uu ku bilowday hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho welina isla waqtigii waa uu sii socdaa waxaana laga joogaa 24 saac inkastoo ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen soo afjaridda weerarka hotel Xayaat haddana gudaha hotelka waxaa ka dhacaysa rasaas la isweydarsanayo haddaba magaalada Muqdisho xaaladeeda ayaa waxa ay tahay mid qaybaha kale ay degan yihiin inkastoo eriyada weerarka uu ka dhacay hotelka Xayaat agarka kilometer 4 xaaladeedu ay aad u cakiran tahay waxa gabi ahaanba hakad ku jiray maanta oo idil ilaa xilligan aan idin la hadlayno ilaa xalay socodka gaadiidka isgoyska kilometer 4 marka aynu eegno dhanka Zoobe wadadu waxa ay ka xiran tahay laamiyaraha Zoobe dhanka kale waxa ay ka xiran tahay dhanka wadada Cabdilqaasim waa agarka madaxtooyadii hore ee Cabdilqaasim dhanka kalena waxa ay ka xiran tahay isgoyska Taleex halka 20 Oktoobar